السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عاشكين مر وحان إلهي كبريا هدي أنغو نمضى إيدينكو نمضى عن مر لبعض إيمر ستحاد إيمر أفراد سكسو لابني وإلهي مهدي أصحابي معنتا وحان إدين وضع قيبتي اللبات قصدي مشاكدي جعيلكي قبيوبي قيبتي اللبات بأيدين معنتا أصحابي وحان كعد سنة يا مر لبعض إيمر ستحاد inaad janaalka subscribe saartaan like aad ku badisaan aad share gareysaan si uu meelo fog u gaaro baan idinka codsanayaa haddii alla idmo asxaabteeda ugu xiranna waa idin salaamayaa idinkana si fiican baan idin salaamayaa asxaabey sheekadeennii jacaylkii qabyoobay baan qaybtii labaad caawa aan rabaa inaan idin sheego sheekadu waxay noo maraysay gabadhii amuun ahayd oo maxay ahayday markii ay suuxday oo tiri anigu bis weeyaan adduunyadan waxba iima yaalaan wax rajo oon leeyahay male waaba ka tegayaaba oo la waaniyey oo maxay ahayd lala hadlay reerkooda la hadleen familkooda la hadleen waxaa la yidhi maanta isdeji oo ilaahay isku xir oo ilaahay ka baq adduunyada hal qof keliya looma soo gabagabeeyo jacayl kale waa laga yaabaa inaad hesho balse horta naftaada muhiimadda koowaad waa naftaada bal horta isdejiyo bal waxaad samaysaa back up samee inaad boogtaas ka booga dhayato bal ka shaqee horta waa koow waa labo gabadhan yaraatay future baad school baad dhamaysay bal wax kale ku fakir bal ha ku fakirin naftaadii dhammeed inaad nin bini aadan raacsiiso adigu reerku way waaniyeen way la hadleen gabadhii quraan xitaa waa la saaray maasha allah way fiicnaatay gabadhii waxay go'aansatay gabadhii amuun ahayd waxay go'aansatay inay waxbarashadeedii dib u sii wadato reerkoodu iyadan way isku afkarteen way soo baxday gabadhii waxay timid magaalada muqdisho gabadh waxay ahayd reer togdheer magaalada burca ay deganayeen reerkoodu muqdishoay timid waxay heshay maxay ahayd jaanis fiican gabadh waxbarashada aad ugu fiicanna way ahayd waxay gashay kuliyaddii la oran jiray kuliyadda beeraha bay gashay amuun alxamdulilah wixii ilaahay wato waa gooni kuliyaddeeday gashay jaamacaddeeda soo dhammaysatay kaal iska adag nolosheeda back-up bay samaysay nolol bay samaysatay inkastoo aysan weli jacayl samaysanin oy islahayd ha ku degdegin jacayl dambe asxaabey yaan sheekada idinka kala gudbinine gabadhii amuun ahayd markay jaamacadda dhammaysay kuliyadda beeraha ayadoo maxayda master ah baa waxaa shaqo laga siiyey oo meel jago looga magacaabay hay-addii la oran jiray maxay ahayd magaceedu wuxuu ahaa Somali Fruit maadaama ay qof kasoo baxday kuliyadda beeraha ahayd Somali Fruit baa meel agaasimo looga dhigay gabadhii amuun ahayd maasha allah nolosheeda okay ay noqotay xamar bay degtay inkastoo ay weli wax jacayl ay samaysan amuun nabsiga ninka la yidhahdaa wax xune maalmaha ka mid ah wiilkii axmed ahaa isna reerkiisu waxay u sheegeen waa la kala dilay labadan qofood reerkiisu waxay u sheegeen gabadha amuun ahayd inay ka tala baxday oo aysan sugin isaga oy guursatay oy ka tagtay magaalada burcaan oo ay muqdisho aaday halkaas maxay ahayd reerkeeda ku dhaqanayso baa loo sheegay isagana halkii uu disappointed ku noqday ninka la yidhahda axmed wuu soo shaqaystay sacuudiguu ka yimid burcuu yimid isagoo janaalo ah hadde nimanka sacuudiga berigaas ka imaan jiray waxaa la dhihi jiray janaale hebel waa janaale axmed isagoo janaale ah buu burco yimid ganacsi buu samaystay maxay ahayd business iyo waxyaalo adigu uun waxyaalo la dhodhoofi iyo waxbuu samaystay dee waa nin janaale ah ileene maalin maalmaha ka mid ah baa ninkii axmed ahaa baa wuxuu warqad uga baahday Somali Fruit wuxuu rabay inuu qare iyo waxaas iyo muus iyo waxaas oo carabaha u dhoofiyo bas meesha buu yimid wuxuu yimid meeshii Somali Fruit buu yimid waxaa la yidhi waxaad u baahan tahay ogolaansho ganacsigan adigoon ogolaansho haysanin ma samayn kartid baa la yidhi wiilka axmed ahaa maxaan sameeyaa maxaa lacag miyaa laga rabaa maya waxba lacag lagama rabo nin maxay ahayd qofka agaasimaha ah oo ku shaqale controlka qofka inuu maxay ahayd qodradda oo experience u leeyahay ama uu maxay ahayd qof khibradda u yahay oo ka bixi kara baa la rabaa baa la yidhi agaasimo hadduu warqadda ku saxiixo waa dhag hawshaada dhooftaankaa ku bilaabanaya waa wiilka axmed ahaa okay
buu yidhi waxba kama qabo waxbana isku megasan ileen waa nin maxay ahayd soo shaqaystay oo janaala wax ma aragtay waxba ka hor imaan kara ma aaminsana marka asagu waa yimidee uu soo baxay maalintii la beliyay maalin isniinay ahayd ballantii markii uu ku yimid uu soo galay xafiiskii gabadhii receptionka joogta waxay tiri agaasimuhu wuxuu fadhiyaa qolka dhinacaas saa u socoto bidix u gal qolka 14 waxaa fadhiya agaasimihi ku saxiixira warqadda okay qac soo socda axmedo isagoo iska qasnayno hadde laglagsanayo janaale axmed janaale wuu soo baxay xafiiskii buu yimid agaasimuhu u garaacay dhagdhag soo dhaaf wuu galay mise halkan waxaa fadhida gabadhig amoon ahayd baa fadhida meesha qac indhaha markuu isku siiyey buu yiri ma aniga bise waa riyoonayaa okiyaaluu gashnaaye okiyaaluhu sidaa isaga siibay saa indhaha ka siiya markaasay iyana aragtay bay tiraaye in la jacayl maxaa la isma eegi karaan dhagdhag muusigaa ku shidmay labadooda dhin aa la isfiiriyay dhin indho aa ka soo haray meeshii gabadha tan amuun ah ayadu hore buu xanuunka u soo marayba ayadu hadda wax saas oo ma aragtay weyn kuma hayo xanuunka jacaylka waa amuun maadaama ay gaartay heer ay nafteeda isdhaafisaba oo ilaahay igu raayay oo iimaankeeda ilaahay soo celiyo ilaahay isku xirtay oo ay ka raysatay laakiin wuxuu ku cusub yahay ninka la yidhaahdo axmed waa yaabay indhoo taagay hadalkii baa ku xirmay ma hadli karo indhahayga ma amuunba ma qofo egba walaalo fadhiisay tiri waa amuune fadhiiso cabitaan ha loo keeno ninkaan customarkayga ah cabitaan u dalabtay fadhiisa halkiyuu yaabay adag muddo daqiiqada markuu aamusnaa wiilka axmed ahaa wuxuu yiri amuuney walaaley maxaa saa iigu gashayo ood iiga tagtayo ad waddanka nooga soo tagtayo danahaaga ad u raacatayo jacaylkeeni iyo xiriirkeeni ma halkaasaa ku gabagabaysa ma aniga ma adaa naa guursanin naag ma guursanin xagee naa ka guursaday amuune adigu jacaylka adiga kuu qabay jacaylkii koowaad iyo kii ugu dambeeya buu adige baa wiilka axmed ahaa halkiyaa laisku ooyey labadoodii allah aniga waxaa la igu yiri axmed wuu guursaday allah amuune waxaa la igu yiri amuun way guursatay reer bay samaysatay halkii baa laisku ooyey waxaan ku leeyahay dee dadkii meesha wixii xafiiska shaqaynayo dhan baa isku yimid shaqaali war maxaa dhacay war muxuu u sheegay gabadha wiilkan iyo maxay tahay arrintan wax meesha ka socota bas adigu after ooyin markii laisku ooyey oo hawsha halkaa marayso baa waxaa la yiri bas gabadhii iyo axmed iyo amuun balan bay samaysteen walaali aniga aan naftaada ahayn ima qanciso aniga xitaa waa kaa daranahay aa ka dhacday meeshii bas hawshi waa maxay ahayd way ballameen reerkoodii wacay waad qiyaanteen buu yiri mayde anagu waxaan lahayn ninka wiilkeena gabadhaa reerkooda saboolkuyaan kula diidanayn maadaama maanta iyadana mustaqbal fiican samaysatay waanu kuu fasaxnay hadda soomaaliye danyarida waa laysku nacaa oo qofku hadduu sabool yahay waxa waaye ma qiimeyno oo waxaan qiimenaa farxiyaan qiimeynaa marka jacaylkana maxay ahayto waa in meesha lagu soo diraa jacayl la-aantiis adduunyadan wax hagaagaya ma jiraan jacayl la-aantiis wax socon kara ma jiraan ha guulaysta jacaylku gabadhii amuun ahayd iyo wiilkii axmed ahaa halkaasay arrintooda ku dhammaysteen ku aqal galeen muqdishoy degeen waxaa ku wardambaysa iyagoo 2 caruura leh maxay ahayd kulay ilmahooda saacadan way weynaadeen marka sheekadeeni jacaylkii qabiyoobay halkaasaanu caawa kusoo gabagabaynaynaa asxaabey haddii ay jiraan dad ku xiran janaalkeyga oo wax qisooyin fiican oo qiso rasmi ah haya ay la soo xiriiraan commentiga ha igu soo reebaan waan jeclahay anigu qisooyinka inaan ma aragtay sii dhagaysto oo dadku usoo gudbiyaan jeclahay haddaad haysaan ila soo xiriira maxay ahayto waa taqaanaan janaalkeyga commentiga igu soo qora haddaad sheekooyin haysaan assalaamu calaykum
waraxmatullaahi wabarakaatu.